Filimkan waxa uu ku saabsan yahay haweeney 40 jir ah oo aad u mashquulsan si ay ugu hormariso xirfadeeda shaqo, waxayna iska dhigaysaa inay jacayl u qaado wiil 20 jir ah, laakiin si tartiib tartiib ah xiriirkii been abuurka ahaa waxa uu isu bedelay jacayl dhab ah. Si aan filimka u bilowno, muuqaalka like saar, YouTube-kana subscribe dheh, comment-gana waxa ku soo qortaa fikirkaada ma guursadeed qof 20 sano ka weyn. Bilowga filimka waxaan aragnaa haweeney qurux badan oo lagu magacaabo Alisa oo 40 sano jirta, waxayna 8 sano ka shaqaynaysaa wargeys oo ku yaala Paris. Dhammaan waqtigeedu waxa ay gelisaa shaqada, balse dabeecadeeda qallafsan iyo fikirkeeda duuga ah ayaa noqday dhibaato. Taas darteed muddo 40 sano ah u dambeysay ma helin wax dalacsiin ah. Alisa way kala tageen ninkeedii, waxayna la nooshahay gabadheeda yar, laakiin meesha waqti badan ay gabadheeda la qaadato sababo shaqo darteed. Subax kasta waxay gabadheeda geysaa guriga walaasheed ka hor intaysan tagin shaqada. Alisa waxay dareemaysaa kelinimo, xitaa nafteeda lama qaadato waqti. Maalin ayay shaqo ugu safartaa Brazil. Markii ay shaqada soo dhamaysay, waxay diyaarad ugu soo laabatay Paris. Intii ay safar ku jirto waxay la kulantay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Adam oo 20 jir ah, waana arday jaamacadeed. Adam waxa uu kireystay kursi raqiis ah oo qaybta economiga, balse waxaa ka jiray dhibaato. Sidaa darteed shirkadda diyaaradaha ayaa u wareejisay kursi business class ah, waxaana la fadhiisiyaa geeska Alisa. Adam ayaa aad ugu farxay markii ugu horeysay oo fadhiisto business class-ka, halka Alisa ay ku mashquulsan tahay laptop-keeda. Markii ay diyaaradda garab waxa ay samaysay gariir. Alisa aad ayay u baqday, waxa ayna xoog u qabsatay gacanta Adam. Adam waxa uu dareemayaa farxad sababtoo ah markii ugu horeysay ay gabarsan u dhaqanto. Ugu dambeyntii diyaaraddii si nabad ah ayay ugu degtaa. Alisana way baxaysaa. Adam waxa uu rabay inuu la hadlo, balse waxay ugu jawaabtay bye, wayna iska dhaqaaqday. Adamna waxa uu arkayaa falaashka yar oo hoos ugu dhacay kursigeeda, wuxuuna isku dayayaa inuu garoonka ka raadiyo, laakiin waa goor dambe. Alisana hore ayay u raacday gaariga walaasheed. Intii ay sii socdeen, walaasheed waxa ay u sheegtay waxaa jira wiil dhakhtar ah oo aan rabay inaad la kulanto, balse Alisa guur dooni mayso. Walaasheed way ka xumaataa, waxayna ku tiraahdaa waxaan rabaa inaad nin wanaagsan guursato, nolol cusubna aad bilowdo. Markaas kadib Alisa waxay aadaa xafiiska, balse asxaabteeda shaqada ma jecla dabeecadeeda qallafsan. Si qarsoodi ayayna u xantaan. Hal saaxiib oo rag ah ayay xafiiska ku leedahay oo mar walba taageera. Shaqaale ayaa u yimid Alisa, waxa uuna ku yiri wiil la yiraahdo Adam ayaa soo waxa xafiiska, wuxuuna rabaa inuu kula hadlo, laakiin Alisa waxay tiri maya sababtoo ah ma aqaan wax la yiraahdo Adam. Kadibna waxay u gashay xafiiska madaxa shirkadda si ay u wada hadasho dalacsiin. Madaxa shirkadda ayaa ku yiri maqaalada aad soo gudbisay hadda dadku wax xiisaa uma hayaan, waxa uuna ku yiri wax cusub iyo wax xiiso la keen, haddii kale waa qasab inaan shaqada ka eriya. Waxayna habeenkii ku dhafartaa xafiiska si ay uga fikirto wax cusub. Markaas ayaa isla shaqaalihii waraaqad u keenay ku qoran tahay in wiilkii soo wacay oo hayay flash ay diyaaradda uga tagtay. Alisa waxay xasuusataa inay diyaaradda ku hilmaamtay, si dhaqso ah ayayna Adam u wacday, waxayna ku tiri xagee joogtaa? Been dareefkayga ayaan rabaa, aad ayuuna muhiim igu yahay. Markaas Adam waxa uu la joogay saaxiibadiisii maqaayadda, wuxuuna ku yiri Alisa halkaas igu imaw. Alisa markay timaado, Adam ayaa gudaha soo geliyay oo saaxiibadii baray. Laba gabdhood oo Alisa la shaqaysa ayaana halkaas joogay, waxayna la yaabayaan markii ay arkeen Alisa iyo Adam oo wada socda. Alisa ayaa rabtay inay si dhaqso ah u laabato maadaama ay ujeedadeedu ahayd inay qaadato falaashka. Alisa waxay ka codsatay falaashkii, balse waxa uu sheegay inuu gurigiisa yaalo. Sidaa darteed waxay soo wada baxeen banaanka. Adamna waxa uu ku yiri fadlan soo kor mootadayda. Alisa weligeed ma raacay mootada, waxayna dareentay cabsi. Adam ayaa siiyay koofiyad. Markii ay aqoon weysay si loo xirtay, Adam ayaa ka caawinaya. Xilligaas labada gabdhood ee Alisa la shaqaysa ayaa ka arkay meel fog, waxayna ula muuqatay in Alisa iyo Adam is dhunkanayaan. Mid ka mid ah gabdhaha ayaana sawir qarsoodi ah ka qaaday, waxayna ku faafisay baraha bulshada. Adam waxa uu Alisa geeyay gurigiisa, halkaas oo aabihii joogay, balse si dhaqso ah ugu soo celiyay falaashka, wuxuuna rabay inuu waqti la qaato. Markii dambe ayuu siiyay. Alisa way baxday. Adamna waxa uu weydiistay inuu asagu wado, balse waxa ay ku tiri gaari ayaan raacayaa. Markaas ayuu ku yiri hal maalin qaxwo miyaan wada cabayn. Alisa wax jawaab ma aysan siin, waxay ku ekayd inay mahadcelin ugu baxdo kaliya. Maalintii xigtay dhammaan shaqaalaha xafiiska waxa ay u fiirinayeen si la yaab leh. Alisa ma fahmin ilaa mid ka mid ah saaxiibadeed ay tusto sawirka. Qof walba ayaana ku qoslaya. Alisa waxa ay ogtahay inay qalad fahmeen, laakiin madaxeeda shaqada aad ayuu ugu farxay. Sawirka waxa uuna ku yiri waxaan ka helay sawirkaada cusub, waa sawir casri ah oo soo jiidanaya dadka. Alisa waxa ay tiri waxba kama jiraan, laakiin madaxa shirkadda ayaa ku jawaabay waa sidaan u baahannahay. Wargeyska waxaa loogu talagalay dhalinyarada. Haddii adigoo 40 sano jir ah xiriir la leedahay wiil 20 jir ah, waxaad fahmi doontaa xiriirka jeelka cusub. Wuxuuna ugu daray xiriirkaas ka sii wad, wuxuu naga caawinayaa iibinta wargeyska. Dadku waxa ay jecel yihiin sheekooyinka xanta iyo daraamada. Alisa ma rabin inay dhab ahaantii la xiriirto wiilka yar, waxayna u sheegtay in saaxiibkeed kula taliyay waxaad iska dhigtaa inaad la socoto Adam, madaxa shirkaddaadu wuu farxi doonaa, waxaana laga yaabaa inaad dilacsiin ka hesho. Alisa waxa ay ogtahay inay qalad tahay in la qiyaamo qof dareenkiisa, balse waxay ka fikiraysaa rabitaanka darajo iyo si ay u hesho in la dalacsiiyo. Ugu dambeyntiina waxay go'aansatay inay Adam isticmaasho si loo dalacsiiyo, iyadoo xiriir beena la samayn doonto. Maalintii xigtay waxa ay la kulantay Adam, si weyn ayuuna ula yaabay, indhihiisana kama jeedin karin. Alisa waxa ay bilowday inay la kaftanto. Adam aad ayuu ugu faraxay, waxa uuna rumaysan layaa inuu waqti la qaadanayo Alisa. Habeenkii Alisa waxay Adam la aadaysaa bandhig saaxiibkeed, halkaas ayayna dadka si ula kac u tusaysaa inay la socoto wiil 20 jir ah. Saaxiibkeed oo barnaamijka taabagelinaya ayaa gacanteeda si kaftan u taabtay, taasoo Adam ka xanaajisa, wuxuuna bilaabay inuu kaftan iyo aflagaada ka sameeyo bandhiga. Alisa ayaana qosashay, taasoo martigeliyay ka xanaajisa, isagaana meeshii ka tagay. Markii dambe Alisa iyo Adam meel ayay fadhiisteen. Adam waxa uu Alisa u sheegayaa inay tahay haweeney la furay oo gabar leh, balse taas iyadoo kama cabsan. Alisa waxayna ku tiri aan isbarano si fiican. Intii ay hadalka ku jireen ayay walaasheed soo wacday, waxayna ku tiri dhakhtarkii aan rabin inaan kula kulansiiyo wuu imaanayaa guriga ee si dhaqso leh u soo laabo. Alisa ma rabin inay la kulanto dhakhtarka, balse si ay walaashii uga farxad geliso waxay Adam u sheegtaa been, waxayna ku tiri gabadhayda xanuun bay qabtaa, waa inaan aadaa guriga. Adam aad ayuu u niyad jabay, si dhaqso ah gaari taxi ayuuna u
u joojiyey. Markii ay aragtay sida uu u daryeelayo ayaa Alisa dareentay inuu si dhab ah u jecel yahay. Alisa markii ay gurigeeda tagtay casho ayay la qaadatay walaasheed iyo saygeeda iyo dhakhtarka. Alisa oo khamri cabtay ayaana su'aal yaab leh weydiisay dhakhtarka, taasoo keentay inuu xanaaqo dhakhtarka oo una baxo. Intaas kadib Alisa weli waxay isku dayaysaa inay madaxdeeda ku qanciso inay dalacsiyaan, balse waxba uma soo kordhin. Haddaba Aadam waxay la tagtay bandhig ay joogeen madaxda iyo shirkadda CEO-geeda. Intii bandhigu socday gabadh model ayaa dhulka ku dhacday. Aadamna si dhaqso ah ayuu ugu orday si uu u caawiyo. CEO-ga ayaana arkaya dabeecadiisa wanaagsan, aad ayuuna ula dhacay. Markii bandhiga la soo afjaray, Aadam iyo Alisa waxay cabeen sharaab ayagoo bilaabay qofka ciyaar. Intii ay ciyaarayeen aad ayay isugu soo dhawaadeen, laakiin Alisa waxay aragtay gabdho sawir ka qaadaya. Sidaa darteed waxay gacanta ka qabatay Aadam iyadoo banaanka u saarta. Aadam ayaa mootadiisa ku geeyay gurigeeda. Aadam ayaa isku dayay inuu dhunkado, laakiin Alisa gadaal ayay u dhaqaaqday waxayna si aamusnaan u gashay guriga. Aadam waxa uu dareemayaa inuu yahay mugudbe. Maalin kale Aadam ayaa wuxuu tagayaa guriga Alisa, halkaas ayuu ka ogaaday in gabadheedu ay la joogto walaasheed. Markaas ayuu dhunkaday Alisa. Habeenkaas waxay noqdeen kuwo aad isugu dhow. Subaxdii xigtay waxay ku tiri Aadam ka tag guriga, laakiin roob badan ayaa da'aya. Aadamna waxa uu sii joogay guriga ilaa roob ka dhamaanayay. Markaas ayaana walaasheed iyo gabadheedu guriga ku soo laabteen. Alisa waxay u sheegtay walaasheed Aadam inuu yahay shaqaale, waxayna si dhaqso ah ugu dhiibtay faylal si ay u muujiso inuu yahay shaqo kala dhaxayso. Alisa waxay dareemaysaa in xiriirkii beenta ahaa oo uu isu bedeli rabo xiriir dhab ah. Aadam iyo Alisa waqti badan ayay wada qaateen. Aadam waxa uu Alisa ula baxay magac, iyaduna waxay dareemaysaa farxad. Sidaas tartiib ah ayuu xiriirkooda ku xoogaystay. Maalin ayuuna Aadam Alisa ku yiri waan ku jeclahay, waxaan rabaa inaan ku guursado. Alisa aad bay ula yaabtay, waxayna ku tiri adigu weli waxaa tahay 20 jir, anigu waxaan ka weynahay 20 sano. Nolol iyo mas'uuliyad badan ayaan leeyahay. Carruurtayda iyo shaqadayda ayaan ku mashquulsanahay. Dadku maxay ina oran doonaan waan ku jecelahay laakiin ma sii wada socon karno. Waxayna ku tiri ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa inaan halkan ku joojino xiriirkeena. Aadam diidma ayuu ka muujinayaa, laakiin Alisa way isaga tagtay. Inkastoo hadda ay dhab u jeclaatay, hadda waxay uga tagtay culayska bulshada uga imaanaya iyo mas'uuliyadeeda darteed. Muddo kadib Alisa way kala yowday. Xusuustii Aadam mar walba way dhibaysaa. Aadamna sidoo kale wuu murugooday, wuxuuna dareenkiisa u sheegayaa aabihii ayaa ku yiray markaan adiga da'daada ahaa anigaba jacayl ayaan la kulmay. Jacayl ayaa igu dhacay. Waxaasna waa dhacaan, laakiin waa inaad noloshaada sii wadaa. Maalin kadib CEO-ga shirkadda way timid si ay u kormeerto shirkadda, laakiin sawir ay ku qanacdo kama aysan helin. Waxay tiri waa inaan helnaa wajiyo cusub oo dhalinyaro ah. Markaas ayay aragtay laptopka Alisa iyo sawirka Aadam. Waxay xasuusatay inuu ahaa wiilkii caawiyay gabadha modelka ee dhacday. Waxayna ku tiri Alisa waxaan rabaa Aadam inuu noqdo modelka cusub. Alisa ma rabin inay mar kale la kulanto, balse madaxdeeda ayaa ku qasabtay. Markaas ayay Aadam soo wacday iyadoo fariimo soo diraysa, laakiin Aadam guriga ayuu cabitaan ku cabayay. Mid qalbi jaban ayuuna ahaa, wuxuuna iska dhetiraya dhammaan wicitaanada. Alisa ugu dambeyntii gurigiisa ayay ugu tagtay si ay gacanta uga qabato. Aadam waxa uu moodayaa inay doonayso inay xiriirkeeda dib u soo nooleeyaan, laakiin Alisa waxa ay ku tiri waxaan rabaa inaad noqoto modelka wargeyska. Fursad ayaana u heli doontaa inaad la shaqayso gabdho qurux badan, waxaadna heli doontaa lacag badan. Aadam ayaa ka carooday, wuxuuna u fahmay inay shaqo darteed ugu timid. Wuxuuna ku yiri ma doonayo inaan mar dambe ku arko. Wuuna iska dhaqaaqay. Maalintii sawir qaadista oo dhan waxa ay sugayeen Aadam. Alisa aad bay u walwalsaneyd, waxayna ka cabsi qabtay in shaqada laga eriyo haddii uusan imaan. Ugu dambeyntiina Aadam wuu yimid, sababtoo ah qalbigiisa weli jacayl ayuu ugu hayaa. Qolka qurxinta ayaana la geeyay. Saaxiibkii ayaa u yimid oo ku dhahay Aadam iga raali noqo, aniga ayaa Alisa kula taliyay inay xiriir kula samayso si ay dalacsiin u hesho. Aadam aad ayuu ugu xumaaday, waxa uuna dareemay in xiriirkii Alisa uu been ahaa. Kadib sawir qaadistii ayaa bilaabatay, laakiin Aadam khibrad uma leh modelnimada. Sawir qaado kasta amar ayuu siinayaa. Aadam wuu xanaaqay, ugu dambeyntiina wuu baxay. Alisa ayaa isku dayday inay joojiso una sharaxdo, balse Aadam waxa uu ku yiri dhab ahaantii waan ku jeclaa, laakiin adigu dalacsiin inaad ku hesho kaliya ayaa ila socotay. Wuuna iska tagay. Alisa aad ayuu u murugootay. Ugu dambeyntii shaqadii ayaa laga eriyay. Hadda waxay noqotay qof kaliya ah oo xasuustii Aadam ay dhibayso, waxayna garowsatay in jacaylku ka qiimo badan yahay shaqo kasta. Sidaa darteedna waxay tagtay jaamacadda Aadam isaga iyo ardayda hortooda. Waxay ku tiri waxaan joojiyay inaan ka fikiro mustaqbalkayga. Bulshadana waxa ay tiraahdo danka ma lihi, anigu waxa aan rabaa adiga kaliya, waan ku jeclahay, waxaan rabaa inaan nolosha kula wadaago. Waxayna raaligelin ka bixisay wixii hore. Aadam weli wuu jeclaa, sidaa darteedna wuu aqbalay raaligelinta, wuuna cafiyay. Markaa kadibna waxa ay ku noolaayeen nolol farxad leh. Filimkiina halkaa ayuu ku dhamaaday. Muuqaalka like saar, YouTube kana subscribe waa ku mahadsantahay daawashada.